hoos ma loo dhaadhacay reero iyo qabiilo iyo xubin laga ma wallahi siyaasadda saas ku tii هو أقام والله يكتب والله والله أي مدحين كحين يجيبوا قالك يا مدحينك مسبح حمد دي وحنا والله صور ده وصار بدلت من سيد ديالوج لا أبدي تسمعينا لا قلت لي نشاكينا نحوست خفر حينو دوني مينو لا حاسي وريست وجريس وانا حق waxaan dhinacayga fadhiya goodka fanka aan muqaddi dhalinyarada daba ku hadlay cabdi kariin soo dhawow ugu horeyn bal loo sharax hay ka dhigan tahay waxa weeyaan halkan in waxa weeyaan calaamadda kabtanka aad ku sidato caawa aad iyo aad baan u salaamayaa adiga iyo dhammaan bulshada inagu xidhan cabdiqanab waxa weeye waxaad igu soo horeysay su'aashii ugu horeysay way maxay ka dhigan tahay tan waan kula kaftamay waxaan si talo ma garoonka badeed baa ku jirtiin mise madal kala ku kulanteen cabdi kariin bal anaga bulshada loo sharax kabtanka caawa kale waa habeen kabitaano way waa habeen qaranimo way waa habeen waxa weeye allah musta'aan walaalnimo way sida darteed waxaan jeclaanay inaan wax ka duwan dadka aan la nimaadno mar walba si hadda iyo marka horeysay waan isticmaali jirnay way marka caawa kooxda fanka Soomaalida kabtanka u sidaa way wada sitaan way maradii marxalan ka cabdiqalab way dhawahay aad baan ku salaamayaa waxa weeye caawa waxa weeye waa habeen qaran waqti xaadirkan fankaagu waxa uu ka talaabay xuduudaha Soomaalida beeskaagu Hargeysa ayuu ahaan jiray balse geeska ayaad in dhaweytay waxa weeyaan dabcan si weyn uga dhex muuqanaysa Nairobi Muqdisho waxa weeyaan iyo meelo kale oo badan bal safarka geeska bal warbixin naga sii Nairobi iyo Hargeysa oo aan deganahay wadankayga iyo wadanka Soomaaliya way Muqdisho lafteeda tagtay waad ka timi kama imaan de mar hore oo si yar maray oo si yar martay soo yar martay adina kugu qabsan waa si yar oo si yar maray shaqooyinkayga kama qabsan shaqo kuma qaban aroos ma tagin way abdaqano way adina kugu baxay markii daad ka timi iyo xaga Muqdisho de maxaan shooban ku qabtay aroos ma tagay diyaaradda ma ila sii marteen diyaaradda kula sii martay Nairobi maxaa ka dhacay Nairobi horta fanka Soomaalida iyo waqtiga Nairobi maxaa waxa weeyaan markii hore waxa loo jiray geeska marka laga hadlayo saldhig waxa ahaan jirtay Hargeysa ma waxba iska bedelay bariyaha Nairobi baa aad waxa weeyaan fanka Soomaalida Nairobi meher badan ba ku yaala aqoon ku fahmay Nairobi meher badan ba ku yaala meherado badan oo wada loo caweysay in laga qoran karo markay aniga yeedaan waa inay adiga ku yeedaan markay adiga ku yeedaan waa aniga yeedaan marka way loo lamaan سادرت بي فنانيتي واي qof loo yeedho mid kale loo yeedhanaya meherdi kale u yeedhaysa marka iyada markii waxa weeye wadadkeeni iyo mar waxa weeye Soomaalideeni waxa weeye marka ku yeedhan way u tagtaa mar walba marka fan laga hadlayo waan tagaynaa soo noqonaa ka soo noqonaa haatan dadku waxay u arkaan inaad waqtigan joogto halka ugu sareeyo ama maqaamka ugu sareeyo ee dhinaca fanka xageed ku socdaa Cabdikariin Cali Shaax xaguu dhaafaya halka maanta uu joogo Cabdiqana horta kelmadaada yiri ku dhig way adoo ma haysatay nolosha fan kaliya ma way inaan ka gudubnaa hadafyo kale leenahay way waxa weeye inaan hadaf kale u gudubno marka ugu sareysay iyagana ka gaar nolosha Cabdikariin halku fanka u dhaafaya hadaba waqtigeeda marka la gaaro ma ganacsi buu dhaafaya ma siyaasad buu dhaafaya ma wuxuu dhaafaya waxa weeyaan ganacsi buu dhaafaya sareysana insha Allah way kana wixii ka gaarnaa dilay kale hadii Allah لا أبدي تسمعينا لا قلت لي نشاكينا نحوست خفر حينو دوني مينو لا حاسي وريست وجريس وانا حق اللحن كلمه ما اوري كرا waxa weeyaan laxankaaga aba ka badan dhinaciisa waa runtii inta marka saddex meelood loo qaybiyo inta fan ku jiro laba meelood loo xaqiyo dhinaca laxankaadu badan tahay xagga laxankaadu badanayo xagga kale heesu waa meel way oo imka jiil ka dambeeyay dhamaantii ugu badan dhinaca laxanka adayga ka qaataan intii doonaysa way marka aad maasayn Ilaahay baa nagu astura Ilaahay baa mahadle ونو صعدان ونو قرحان عبد الكريم سؤال شيء ده قدام يسا هدي اللي قوله هيبة كلام ملاذ هذا فن كبحسن ما حد قول له هيبة فن كبحسن فن كيشغل فن كعاد كجت كبدو
كبدي أساس لا واي حتى دي تذكر وقال لها ها وحوي تاسسي بخلا سياسة سايس كنتي هو أقام والله يكتب والله والله أي مدحوين كحين تشوف قالك يا مدحوينك مسبح حمد واي مدحوين كحين كوا تعال برحمة على اسماعيل سيدي واي أصحاب سياسة إيه وحوي وقت كان معارضة صدق حسب قرن لبض حسب قرن معارضة يا قدوميالك منا عبد الرحمن منا فيصل دي سياسة صوتي الله صعبة تما أنت هو أول من قرن واي هو اسمه الله دعنا يا رأي قبيلة يعمل لك ما والله جت واي صدق حسب قرن عاد بنص عام ورفض جت كلا صوت هيدا ورفض سياسة الصومالي وحنا والله صواري ده وصار بدلت ونسيت